السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادا أصحابتي غالية دمانتي سو دوادا هدي aad nagu cusub tahay channelka soo dhaweey subscribe saar si aad ula socoto wax kasto aan soo geliyo. Hadii aad hore ugu jirtayna aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Hadda waxaan inoo bilaabi doonaa insha Allah qaabka aan u sameeyay. Hadda waxaan inoo bilaabayaa insha Allah qaabkii aan u sameynayay. qiyaas ahaan waxaad qiyaasan kartaa hal koob oo daqiiqdaas waxay ka samaysantahay somaliina daqiiqdaas ee galeyda laga sameeyo weeye maaha daqiiqda cad yada oo kaliya insha Allah ayaan ka sameynayaa hal koob ayaad qiyaasanaysaa insha Allah aad ku qiyaasanaysaa waxaan kaloo ku darayaa qaada yarafkeeda hore oo milixa in yar oo qiyaas ah marka koobka daqiiqdaad qooshanaysa iyo milixdu si isugu ka yeelato waxaan kaloo hadda ku sameynayaa biyo yar oo diiran ayaan soo qaatay biyaha yar diiran ayaan ku xashayaa marka aad ayaan isu dhex gelinayaa aad ayaan u xashayaa kale wala socon doontaan insha Allah qaabka aan u sameynayo daqiiqdana aad bay u fiican tahay aad bay waa galey lafaha kale aad bay ugu fiican tahay laakiin daqiiqda cad way ka wanaagsan tahay aad bay ugu wanaagsan tahay kuleen waad baan u jecelahay hadda waxaan sameynayaa waan soo qaadanayaa halkii aan saliid yar ku xashi lahaa saliidda kuma xashaayo laakiin waxaan ku isticmaalayaa subaga buuraha loo yaqaano ama badharka ah ee ku jira firinjeerada ku jira wakaas in yar oo ilaa 80 gram ah ayaan soo qaadanayaa inta yar baan ku xashayaa aad baan isu dhex gelinayaa muhiimadu waxa weeye inaad adigu aad isu dhex geliso si ay kuugu jilcday kuu noqoto sidii keeg oo kale oo qof kasta yar iyo weyn uu cuni karo xitaa ay kuugu dhigmi karto ilaa 2 cisho ilaa 3 cisho si maartayadu sideedii u jilicsan oo sideedii aad ugu wanaagsan marka asxaabta insha Allah ka faa'iideysta baroobeeya waa arki doontaan quruxdeeda iyo macaankeeda insha Allah inta badan waxaad ku dadaashaa insha Allah daqiiqaha aadka u wanaagsan inaad ka samaysato barkii hadii daqiiq cad ka samaysato calool istaag oo kala laga qaada marka hadda aad baan u xashayaa insha Allah ilaa 20 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo ayaan aad u sameynayaa marka waxaan sameyn doonaa insha Allah soo dhawaadaan in ilaahay horta dhamaantiin channelka hadda ku cusubtayna subscribe inoo saar siina share gare haddii aad hore joogtayna aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa la sii wadaaga asxaabtaada wax kastoo aan jecelahay haddii qurxin noqoto iyo haddii cunto noqotoba insha Allah asxaabtayda waxaan jecelahay in la wadaaga dhammaantiin marka hadda aad ayaan u garaacayaa si ay maaragtay u jilicdo oo maasha Allah u noqoto waayo wax walaal hadda waxaan soo diyaarsanayaa qorigii iyo kii lagu jarjarayay hadda waxaan isu diyaarinayaa qaabkii aan u jarjari lahaa baleegsay u jilicsantahay hadda dimka gacanta saa ugu qabato saasay u kala cararaysaa halkii aad saliid yar ku xashilayd kulaba kimista marka la xashayo ama sabaayada kulba sidaa u taqaanaan marka la xashayo waxa lagu xashaa saliid yar laakiin anigu inta badan subagaasaan ku xashtaa aad bay u jilicsan tahay hadda waan soo jarjarayaa waxaan u jarjarayaa 9 xabbo ayaan ka dhigayaa insha Allah markii hal koob daqiiqa weeye marka waxaad sameyn doontaa insha Allah wada la soco hadda waan soo leekaysiinayaa in ka dhiman intiisaan ku darayaa lagama sheekayn karo saasay u jilicday hadda imka saad u rugayso gebigeeda waxaad moodaysaa in buskud camal oo kale wax kalena kuma sameyn biyaha yar iyo milixda cusbada iyo waxaan ku sameeyay subaga yar ee aan ku xashay bas khalaas iyo daqiiqdo aad u fiican oo somaliina ah oo daqiiqda galeyda ka samaysan ee inta badan ay maaragtay casaanka guduudan maaragtay xitaa wada aragtay inay daqiiq u eekaynay tahay jaallo oo kale kalarkeedu aad bay kimista oo kale roodhida oo kale waxyaabaha burka lagu isticmaalo dhan aad bay ugu fiicantahay waana budo sida daqiiqda oo kale burbur ma leh wata hadda markaan saa gacanta u dhaxgeliyo bushtaas oo hayaa saas u degayaa maasha Allah dii lagama sheekayn karo hadda waxaan soo qaadanayaa bahalkan korka ka saarayay daqiiq yar baan u marinayaa daqiiq yar markaan u mariyo taraygan waxaan wada dul saarayaa waxaan wada dul saarayaa kimistii aan soo diyaarsaday 9 xabban soo diyaarsaday ayaan wada dul saarayaa insha Allah daqiiq yar ayaan hoosta kaga shubay mar wala daqiiqda xitaa aan isticmaalayaa waayada daqiiqdeeda uun maaha wax kale waxaan soo qaadanayaa marada kicada loogu talagalay oo nadiif ah oo laalaaban aan armaajada ka soo saaray ayaan soo qaadayaa korka ayaan ka saarayaa si aanay iiga qalalin ama dabayl iigu dhicin hadda waxaan sameynayaa xoog baan u kala bixinayaa kulli halka waad ka aragtaa daqiiqdu sida u kala baxayso xitaa kaama go'ayso maasha Allah baroobe tijaabi
waxaad samayn doontaa insha Allah saasaan u kala bixinaya markaas saa u kala bixiyo waxaan samaynayaa dhaxda saliid yar baan ka marinayaa dhaxda markaas saliid marka daqiiqda ma soo dhigdhigin oo ma soo dadaboolin waan soo xashay waan soo diyaarsaday waan jarjaray waan sameeyay markii waad samaysan kartaa baalan caadi ahayn baa kaaga soo baxaysa hadda dhaxdii baan saliid ka wada marinayaa markaan ka wada mariyo ee aan xasho ee aan saa wada diyaariyo waxaan wada dul saaraya ku diyaarin doonaa insha Allah halkii aan ugu talagalay ee aan marada saaray si aanu iiga qalalin baan dib u saaraya markaan laba walba isku laabo lagama sheekayn karaan kuli maasha Allah asxaabta qaaliga dhammaantiin soo dhawaadaan in leeyahay fikirkiinu waa inoo muhiim anigana fikirkaygu waa inii muhiim insha Allah inaynu talooyinka kala wada qaadano aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta maaragtay wax kastoo aan jecelahay bayna la wadaagayo waxaan weli waan xashayaa waan wadaa waxaan samaynayaa qorilo wixii baan wadaa qorilo wax markaad saa ugu dhamaystirto saliid yar baad saa dhaxda u marinaysaa waad isku daboolanaysaa daqiiqdana waxay kaloo ku fiicantay kuu sahlaysaa markiiba kimiste way kuu samaysmaysaa kaama googo-ayso kaama jilcayso maasha Allah markaad cunayso kale xitaa saasay u kala daadanaysaa sidii maaragtay daqiiq mar hore la xashay meel la dhigay hadda waxaan kaloo soo qaadanayaa birdaawaha ayaan soo qaadanayaa dabka waan u gaabiyey waniga dabka inayni tusay waxaan sameynayaa hadda xabad laaban ayaan soo qaatay waan kala bixinayaa waan tusayaa qaabkan u kala bixinayo birdaawaha ayaan insha Allah u diyaarinayaa waqti jaasasi ku birdaawaha waxaad soo qaadanaysaa talada nagu kordhinaya waxay tahay maadaama marka akimista inta badan ama sabaayada la sameynayo waxay samaysaa qiiq saliidu ay maaragtay haday dabka taabato oo kale laakiin waxaad soo diyaarsanaysaa softida maaragtay kijada loogu talagalay guriga ku taalaad soo jaranaysaa in yar marwal oo kasta ood xabad dubtaba daawahaga waad masaxanaysaa gurigaagi ur kaama gaadhayo qiiq sabaayadu kaama gaadhayso qarmuunkaaga ma baxaayo maasha Allah markastana waad nadiifinaysaa daawahaagana nadiif buu kuu noqonayaa sabaayadina si fiican bay kugu dumaysaa oo kaamooskaga umayo markastoon xabad saaraba softida ayaan marinayaa marka hadda maasha Allah sida quruxda badan leh ku soo baxday inaba caadi ma haba quli maasha Allah tabarakallah hadda waxaan soo qaaday taamaradii waan soo qaatay softidii baan soo qaatay waan mariyay haddana imika xabad kala saaray markastoo aan marinayo ama saarayo xabad cusub waan marinayaa softida sababtan u marinayana waxay tahay qiiq ayaan nacayaa in maaragtay dibadda u soo baxo waxaan doonayaa intayda dabkayga inaan ku eekaado ama aanay gijada hareeraheeda iga ususkoon oo saliidu iga gaadhin markaa sidaa darteed baa keenaysa mar walba inaan masaxo adiguna baroobeyn kartaa insha Allah hadda baasha kimiste quruxda badan la soo baxday waxaan jeclaystay inaan la wadaago maadaama aan maaragtay casariye yar ku tuurayo inaan la sheer gareeyo wax kastoo insha Allah ay la soo gudboonaada ama aan aqaano si qof kastaaba uu qofka walaalkiisa uga faa'iideysto hadda wata maasha Allah waxaana aad u anfacaysaa dadka singalka ah sida wiilasha oo kale dadka jecel inay cuntada samaystaan dad badan oo garanaya jira dad badan oo garanayna way jiraan marka maasha Allah tabarakallah hadda waxaan soo qaatay waan masaxay xabad kalaan saaray waxaan ku tusayaa saliida marba in yar baan korka ka marinayaa saliida kuma shubaayo marka saliida badan ma fiicna marba korkaan ka marinayaa sidii kareemka oo kale dabadeedna xagga kale aan rogayaa marka wakaas hadda jaasaasay diyaar kusoo noqotayba maasha Allah saasay diyaar hadda ku tahay maasha Allah xagga kale nimka ayaan u gediyayaa marba xagga kale aad u gediyaysaa intay kuu bislaanaysa kuu wada casaanayso marba dhinac baad u gediyaysaa weligaa dabka ha kaga dul tagin haddii dabka aad kaga dul tagto way kaa gubanaysaa marka markaad samaynayso inay kuu diyaarsanaato weeye si gacantaada ula qabsato oo gudud qurux badan kuugu noqdo hadda waan soo qaadayaa softidii waan soo qaadayaa waan tirtirayaa waad ujeedaa saliid ayaan marinayaa daawaha dabeedna waan saarayaa haddana xagga kale ayaan markiiba u gediyayaa say labada dhinac markiiba isu qabsato hal mar soo wada kacdo haddana xagga kale aan u gediyayaa korka ayaa waxaan ka marinayaa saliidii yarayd dabeedna waxaan sameynayaa way soo kacaysaa haddana xagga kale aan u gediyayaa waad ujeedaa waan inii dhammaystiray iyadoo aan wada dubayaan inii dhammaystiray inimaan soo kala jarin markii waxaan ugu talagalay
inaa idinkuna ka faa'iidaysataan insha Allah inta aan aqoonin. wata hadda xagii kale aan soo gadiyay lagama sheekayn karaa kimis waa la dubi karaa qof lagu dubi karaa laakiin waxay ku xiran tahay qaabka loo xashaayay ku xiran tahay iyo sida ay u jilicsan tahay. kimistu waa inay intay doonto ku ooli kartaa. kimista waxaan ku wari safar baa lagu galaa aad bay u fiican tahay. hadda waxaan soo qaadayaa maradii mar wal oo kasto aan xabad kasta saarayo waan ku masaxayaa isagoo birtaydii nadiif iyo wax qiiqana aan ii lahayn ayaan ku dubayaa xabad walba sideedii u saaranayaa. laakiin haddii qiiqii hore uu leeyahay ama daqiiqdii wixii ka dhacdhacay kimista oo birtu ka leedahay guriga dhan uu ka qiiqayaa kimistu nadiif kuma noqonayso. marka mar walba waa muhiim inaad iska tirtirto hay laawintaas. maasha Allah baasha ukunkaaba soo baxday. hadda waan soo qaadayaa wali waan tirtirayaa waa ujeedaa. maasha Allah waan marinayaa waligaana birta saliidda ha iskaga shubin xabadda xaga kale markiiba ugu rog. haddana xaga kale aan u gediyayaa wataa kimistiisaasi ku soo baxday insha Allah. hadda way dhowdahay xilliga aan dhammaystirayo waxba ima harin. waa intaas aynu la wadaagayay maantana aad iyo aad baan igu mahadcelinaya asxaabtayda qaaliga dhammaantiin. waxaan leeyahay channelku waa channelkiini subscribe iyo like share intaba saa ugu qabta. anigana kolba wixii maaragtay aan dan moodo ama aan isleeyahay bulshadaada ugu wanaagsan tahay ayaan la share gareyn doono haddii Ilaahay ka dhigo. idinka ayaan dee waxay nagu ahay dhiirigelintiina wala is dhiirigeliyaa. hadda kimistii waxaan kusoo guray midiimad waxaan sameeyay in yaro sokoran korka kaga yaaciyay maadaama anigu aan suugo ku cunayna shaah ku isticmaalayo aan caruurta shaah ku siinayo. maasha Allah saasay u burburaysaa waa burburaysaa. waxaan soo qaadanayaa koob shaaha qaac dabadna intaa yar baan isku fadhiisinayaa. maasha Allah aad iyo aad baa mahadsantiin. aad iyo aad baan igu mahadcelinayaa dhammaantiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan idin leeyahay subscribe like share intaba iyo daawasho wanaagsan. haddii aad ka heshay hoosta comment igu reeb hadalkaagu dhiirigelin buu ii yahay. aad iyo aad baan idin salaamayaa. waxaan idin leeyahay galab wanaagsan casar wanaagsan.